الله الرحمن الرحيم سلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته داوديالكم سودوا هذا برنامج ساعة عافمادك وتضواتك بمانت وكانت كلا سعوتان رجة تي في أنا وبهج عبد الله الصلاة يا تضوات كان إذا لسه عسين دون برنامجك تضوات كان برنامجك هذا يحس بديان وحنا كسوق هذا لنا حانون كدبريشن كا أما صومالي اللي أنت بدل سيدا وتعانو نيجابك تضوات كان وحا مرتكونا هاي إسبيتال كتطر عثمان فقه هوسبيتال تضوات كان وحا برنامج كمرتينو وقع متكمل النقاط السكول قشة إسبيتال كان تطوريس خسودو رجتي في حرد سمية للمنشو وادو هاي وما سنتين تطوريسو باكجراوند كاغا waxyaalo inooga tataabanaya sidaad u aragto Raja TV barnaamijka saaca caafimaadka ee toddobaadkan aad martino uga tahay bismillah magacayga waxa waaye idil cawl cilmi wax aqoonteyda ama waxyaabaha barteen waxa waaye psychology ama cilmi nafsi hadba midka u taqaanin waxa ka howlgala isbitaalka Cusmaan Fiqi maanta horta ilaahay ka soo kowaada ugu mahad celinaa inay soo booqdeen rajo cable ama rajo TV xarunteedii ugu soo booqdeen iyagoo igu casumayo barnaamijka tusaha caafimaadka haddii aad dib u noqdo kulay wixii aan soo bartay iyo waxa ay yihiin maadaama anaga nagu yara cusub tahay psychology-ga ama cilmi nafsiga waxa ka shaqeeya ama aad u la xiriiro ama shaqooyinka ay ku kooban yihiin waxa waaye la tacaalida xanuunada nafsiga يعني حنون نفسي مركا دها إنه معناه دعيته إن قفك بني آدم كجير إيه نفسه وكسمي سنيا مركا سيدا قفك بوهذا بجد جيرك وحنون صدق وحنون ذي سلوس وصار كرا أما قلب أما ديك أما إن قليمة أما وحياة بدن أما الأكرك لقى أركي كروس ساس لما بدي نفسه وكحنون صدق يعني نوع عربتها هذا هو الوالكم مروجة عقدة نية جبكة اسكو دحياعة فكر كثير هذا بدن وبدن تو حتى أنت كله كصديق كرمان مركا وإنا هل أمر لبا أو حتى أكشرها إن شاء الله وديارة وهاي مر لبعضنا وهم هدعلنا تي في يعزمها ديما تسمين تطوريسو تضبعت كان برنامج كذا يحسب بداية هاي inta badan waxaan doonaynaa bulshada Soomaaliyeed in badan inay wax ka ogaadaan xanuunka depression-ka deeqada hadda Soomaalida sida u taqaano ama niyad jabka ugu horreyn su'aashan ku weydiinaa waxay tahay waa maxay depression ama niyad jab bismillah hadaa ka jawaabo su'aashaas yani depression oo afka qalaad lagu dhaho ama anaga waxa dhahnaa niyad jab laakiin exactly ama magaca ku haboon niyad jab ma noqonaysa sababtoo ah markii depression la dhaho niyad jab way ka yara sareysaa oo yani aad uga weyn tahay qofka bini aadamka inuu niyad jabo waa waxyaabaha nolosha kamid ah waan laga qabsadaa oo waayaha iyo isbedelka waqtiga qofka ka tirtiro laakiin markay imaado xanuunka nafsiga ah waa xanuun u baahan la tacaalid tiro badan dhinac walba ama daawo ha ahaato ama la socotaan oo xag psychology ha ahaato ama u dhimrin ha ahaato waxyaabo badan u baahan yahay marka cudurkan depression-ka markii la dhahayo wuuna baaxad weyn yahay runtii wuu baaxad weyn yahay wana xanuun badan yahay oo dadka haya aad u dareemi karo kasoo ilaahay kasoo aad u dareemi kara anigana maadaama dhakhtaradooda ahay xanuunka oo ku hayo dhibaatooyinka ku hayo waa la dareemi karaa ilaahay ka wada dulqaado xanuunkan depression-ka marka la wada qofka waxa soo wajahayo niyad jab aad u weyn yani murugo aad u weyn oo ka baxsan isxakameynta noloshiisa yani qofka maskaxiyan ma waalno wuu fiican yahay laakiin waxay noqonaysaa inuu nolosha meel ku calaaqmo naadi maanta nolosha say u socotaa oo la soconaa laakiin qofka markuu depression qabo nolosha meel uga istaagay yani rajo ma lahan dhaqdhaqaaq dambe ma rabiyo gocasho ku jira dhibaatooyin hore oo gocanaya farxad ma jirto horta warkeeda iska dhaaf يعني wax kasto bini aadanka rajo siin lahay ama ur socod siin lahay way ka wuxuu galaa xindaab murugo ah ويسكو وينايا دقائق نفسيا أما وحقبشة من ربيو مسكحدي سواح ما كله حكمين كرتو هذا نتاس وح أوصي دير وكان شو أوجي هاي إن بوحن بربلام أيين لكن سأوسن أودين إنه كبحه أو دب وكبحه مركو حين قاني ساقف كي
يعني maanta marka dib kugu dhaco raja leedahay ma inaad ka bixisid laakiin waayihuna way ku socdaan noloshina way ku socotaa fahamkii dadka fahmayeen ma jiro asagina xaydaabkii murugta ku jira oo lama buuqa dhibo iska ooyo yani waa xanuun aad u weyn oo maanta lana taaban karin lana arki karin marka la dhaho depression Titoreso imisan nooc ayaa jiro depression ama niyad-jab noocyo ma la dhihi karo laakiin wuu kala sareeyaa يعني level kala leeyahay yani qof waxa jira depression ku dhaco noloshiisa iska wato yani oo xogaa la dagaalami karo nolosha laakiin guud ahaan oo aad u jaban yahay oo jabwan ee ka jiro midna waxay noqotaa lama qofkii loo maleeyo qofka inuu isku dhaxyacsan yahay ama loo maleeyo in shaydaaman iyo waxaas ay hayaan nooc kalena waxay tahay waa xarooda qofkii oo nolosha ka xarooday qolkaas mugdiga oo raba inuu iskaga jiro cuntaha sheegin jiif fiican malahan qaro waa jiifkooda inta badan malahan jawaab fiican ku siinayo kuwa qaar xataa waxay aaminsan yihiin in dhibaato ay hor u soo sameeyeen oo hadda laga jaro amal yani maskaxdiya waxay bilaabay wax qaldan inay sawirato because يعني sababtoo malahan qof oo su'aal weydiinayo qof uga jawaabayo qof wax sheegayo marka qofkii wixii maskaxda markay iid isku celceliso wax badan oo qaldan soo baxayo oo negative marka kuwa qaar waxay aaminsan yihiin in ciqaab aduun ay marayaan oo dambiyo waaweyn ay hor u galeen oo runtii hadii la sheegay aysan ahayn mid oo haysan marka ku levelada ku amal marayaan waxa laga yaabaa qofkii in xogaa hadalkii ka yara go'o tartiib hadalka u goosto xanaaq badan inuu bilaabo wax kasta inay negative ama si qaldan ugu sawirmadaan kabacdi oo hadana bilaabo in oo cuntadii ka go'o jiifki waayo buuqi dhibo yani shalay hadii oo isnadaamin jiray oo dadka xaragada jecel ahaa inay ka dunto wax shaqaweyn iyo waxyaabo kale oo hami oo doo jiray inuu hami marka dhahay micnaheedu ma ahan qof kasto hami leh haddoosan sameyn karin inay depression tahay يعني وحي هالمال مكو لكن هم وحتى يعني أنا كان depression كاميجا مركا كاد لا حتى يعني ما أنت وحوين قبل وحي قبل لكن هم يقصوك أنا ما هو قفنا وحو talent وياها وجعليها يعني عمل ما تواصل بها يضل عاوية نفسيا أو رجست يعني هوشس هاي وكحرنا وفرحة أكره هذنا هي وحي ترتيب وبابا آية مركا هميجا الشيء جاي من ده سؤال لكن ما هدتك قف بدنا سؤالها اللي ويدي قدرتك هميجا اللي أنا وهم اللي معها هميجي وسمين كريم داسنت من depression تاعي بربلام كلا ودين عيسى تاعن marka qofkan hamigi wixii oo jeclaa wixii uu rabay hoos uga soo dhacayo marka noocyo maanta oo dhigi karo depression hebel ma jiro laakiin oohintaas levelada ay ka kala taagan tahay rabitaanka adduunka levelka oo ka kala taagan yahay oohinta levelka oo ka kala taagan yahay ay ku kala duwan yihiin xoganaantiis Titoreso ma jiraa calaamado sax ah oo qofka lagu arki karo depression ka isla karo qofka wuxuu qabaa depression horta xanuunada nafsiga oo isku yara eegyihiin calaamadahooda marka la ku celinaya dadka idaawanaya calaamada qaar hada shayga iska dhaxbaarin micnaheedu ma ahan in oo waxyaabo iska yar oo nolosha niyad jabka camal inuu yahay laga yaaba oo adiga depression u fasiratid hadda exact depression yahay ina fahamtay arjayna calaamado oo badan horta walwalka ku jira qofka inuu yara walwalo oo maanta adiga hadii oo problem ku haysta imtixaan soo socdo waa walwale taas caadi waaye yani walwalkaas walwal iska caadi ah waaye yani bir shaqo weyn qaban rabtaa waa ka yara walwale imtixaanaha jiro walwala jiro martaqaad yani nolosha caadiga oo socoto walwalada oo sababta leh ma ahan laakiin qofkan walwal oo wuxuu walwala meesha laga jira ma yaqaan waa cabsana waa walwala waa ooyna calaamadaha oo waxa ka wada depression ka lagu garto waxa kale oo dhibay buuq yar moodul qaadan kariyo go'aan ma gaari kariyo waxaan way qaldan yihiin way saxsan yihiin ma kala saari kariyo calaamadaha kale lagu garto waxay tahay xarushada oo nolosha ka xaroonaya yani dadkii ka yara fogaanaya wuxuu ka yara fogaanaya farxadda iyo socialki mujtamaciin oo asaga wax qabsado hormaro yani si uu xaroonaya marka calaamadahaas kulli ma wada sheegin laakiin waa calaamado kamid ah oo ko laba saddex la dhigi karo calaamadaha hada sheegay Titoreso maxaa dhalin kara depression
su'aal fiican waaye depressionka markay noqoto waxa dhalin karo laba mid waa horta mid dhaxal ku imaada oo mostly inta badan xanuunada nafsiga dhaxal ku imaadaan qaas ahaan depressionka dhaxal marka dhahaayna ma ahan dhaxal dhow qasab ma inuu noqdo laga yaabo xaaliyan dhow yahay oo abti ama adeer ama ay dhow tahay sometimes ilaa iyo 4 fac woo gala oo wata marka midna waa dhaxal midna nolosha keento yani qofka waxa laga yaabaa dhib xoogan inuu ku dhacay ama maala ka dhumaayo ama waxa qofka ka dhimanayo ama waxyaabo uusan rabin oo galaya yani waxa jiro nolosha si u socoto barobaleemo qofka ku kalifay in oo xal intuu u waayo ama si oo horta ko xanuunada nafsiga xanuunada ilaahay ka mid yihiin marmarka qaar ma la dhihi karo saasi sababtaasi goonidu ku soo asiibay ma la dhihi karo oo ilaahay anaga ilaali intee sana la ka caafiyo laakiin labada badan loo saari waxay tahay mashaakisha adduunka iyo dhaxal akeeni kara la dhihi karaa markii laga hadlayo wax keenayo torisiya u nugul hadaba in ay la kulmaan depressionka ragga iyo dumarka diraasada caadiga caalamka qoran waxaa la kulmaa inta badan dumarka waxyaabaha u keenaya oo loo sababan waxay tahay waa dhowr waxyaabood kow waa ka nugulnahay ragga way ka shaqo badan yihiin yani mas'uuliyadaha saaran oo dhanka oo guriga iyo ilmaha iyo waxyaabahaas ay qabanayaan iyo shaqooyinka banaanka iyo way keentaa dhiigaas uu imaanaya naftirkiisa waxaa hormones gooni ku furan dhalmada naftirkeeda waxaa jiro depression la dhahayo oo ku dhaco hooyooyinka markay dhalaan markaas lagu imaanaa laakiin anaga waxaa dhahnaa iblaa umusha lagu raaca laakiin waxaa waaye depression yani hooyada waxaa laga yaabaa cunug inay qabsan weyso waxaa laga yaabaa cabsi ah cunuga ama kaa dhinta hooyo qaar waxay ku fikereen oo cunugiya wax kale noqonaysa u fiirinayso waxaa iyadoo nolosha iska normal taho oo hadda dhibaato gooni oo nolosha ka haysanin laakiin depressionka wuu ku dhacaa hooyooyinka dhala qaar marka badanaa inta ku dhacdana waxay u badan yihiin naaga asbaabtana badanaa waxaa u jilcinayo hormoneskaas oo ka qaldan iyo xoogaa emotionka dhankiisa way u badan yihiin yani wax israacraacsiinta iyo dhaawac ku dhacaya iyo way yara badan yihiin ragga marka saas daraadeed ragga iyo dumarka diraasooyinka waxay sheegaan inay dumarku ku badan yihiin haddaba tutoreyso goorma ayuu qofku u baahan karaa in uu la kulmo ama uu la xiriiro dhaktar cilmi nafsi ama dhaktar nafsi waxaan markay bilaabanayaan inta stress taagan yihiin in lala xiriiraa fiican marka anaga dhibaatooyinka badan aan haysto waxaa waaye wixii xanuunba ma u fahamsanin dhaktar inuu jirana ma u fahamsanin oo dadkaas la tacaalo marka ma ku dhihi kari ma dhahayo hala sugo waqti hebel iyo calaamad hebel iyo yani qofka hadduu mar arko inuu isku buuqsan yahay ama circle uu ku jiro depressionka hata waxyaabahaas waxay tahay oo nolosha sababta markaa ku leeyahay yani qof waxaa jiro routine uu ku jiro noloshiisa kan qabo yani ma jiro xilliyo oo nafis iyo waxyaabo iyo marka routiinadaas iyo waxyaabahaas stresska ka dhasho uu sii dhaliyaa depression marka xaaladahaas marka lagu jirabo ama ha yaraadaan ama ha weynaadaan aniga kulay tala ahaan waxaa iga ah in sida ugu dhaqsiyada badan mar walba loo tago oo lala xiriiro dhaktarka wax walba waxay fiican yihiin markay yar yihiin tutoreyso haddaba xanuunka depressionka ma leeyahay ka hortag oo 100% ma lahan laakiin waxyaabaha looga hortago waxay tahay horta wixii haddaa ogaatid inay jiraan markay kusoo hayaan waa iska yar ama yani waa ka yara dadaali kartaa waxa hadda sheegayna ma dhihi kari 100% waa xataa oo la iska ilaalin karaa laakiin waxaa jiro skills ama xirfado la barto oo ku saabsan nolosha sida loola tacaali lahaa yani dhibaatada nolosha ma baaba'do laakiin waxaa la bartaa xirfado loola xiriiro oo loola dhaqmo ani maanta bulshada dhan wax ma wada sheegi kari positive ma ka wada dhigi kari nolosha ma ka wada dhigi kari nolol socoto fiican laakiin waxaa sameyn kara qaab ah ula xiriirayo jawaabta aniga gudahay ka bixinayo marka waxyaabahaas haddii aad u sare u kicisid yani jawaabaha iyo qaabka wax u aaminsantahay iyo qaabka nolosha ula tacaalaysid iyo dhibaatooyinka qaabka u xalinaysid waxyaabahaas waxay kuu sahli kartaa inaad ka yara duruqdid
dhibaatooyinka depressionka xataa kaliya ma dhihi karo dhibaatooyinka nafsiga laakiin marmar waxaa laga yaabaa qofki inuu waxyaabo problem iyo waxaas qabin ee dhaxal ahaan usoo gasho waxaa laga yaabaa qofki inuu soo la tacaalayo is ilaalinayo inay ku dhacdo marka hadaa hore u sheegay ma dhihi kari waxaas iyo waxaas la iskaga ilaalin karaa laakiin hadaa sare u qaadid ama kalsoonidaada iyo tafaacushaada iyo nolosha xanuunkeeda saa ugu jawaabaysid way ku yara saacideen doctores hadaba ugu dambeyn wuxuu isla soo garay gunti iyo gabagabada barnaamijka Tusaale Caafimaadka Rajo TV sidee loo daaweyn karaa xanuunka depressionka dadka qaba labo depression marka soo gaaro horta qofka daawo u baahan yahay sababtoo hormones badan ama dheecaano badan oo loogu talagalay inuu shaqeynaynin labo wuxuu u baahan yahay la socosho badan oo dhakhtarka psychology ee dhakhtarka cilmi nafsiga yani maanta hadii daawo kale la siiyo kasta la siiyo oo la bedelin ama lala soconin in badan dhakhtarka nafsiga oo lagu caawinin waxyaabo badan daawadii kaligeed waxay taraysaa malahan mar kalena ma ahan depressionka kaliya xanuunada nafsiga la socosho tiro badan waxay u baahan yihiin oo dhakhtarka ma ahan xanuunada sida oo jirka ku dhaco maanta hadaa daawo qaadato oo hal mar dhakhtarka usoo noqotid oo inaa hore ka bixaysid marka daaweyntiisa waxaa la socosho badan oo dhakhtarka oo nafsiga iyo daawada oo laazim qasab ay tahay in la qaato oo depressionka kabacdi qofka light therapy wax la dhahayaa jiro counseling ama u dhimrin wax la dhahayaa jiro waxyaabahaas in lagu la tacaalo oo lagu la kaalmeeyo laakiin waa laga baxaa hadaba doctores waxa tahay doctor Idil Cawil isla markaana waxa ka howlgashaa doctor hospital hadaba caseska ama bukaanada kugu soo booqda xaruntan qaab noocee ay u daaweysaa maybe waxa dhici karto dadka qaar in aad ku daaweyn karto daawo kuwana psychology ahaan hadaba waxay looga sheeg dadkayga ii imaanayo way kala gedisan yihiin qaabka ku daaweynayna mar walba waxay ku xiran tahay xaaladda asaga haysato xaaladda kuwa qaar hadal ay u baahan yihiin kuwa qaarna daawo u baahan yihiin kuwa qaarna labadaba way u baahan yihiin oo yani ma go'aamin kari hadda ma dhihi kari kaas hal weygaas ama weygaas ula xiriiraa laakiin way imaadaan asxaab badan ku leeyahay oo badan asxaabteedu waa bukaan miga ahan dadkayga waa asxaabteedu waa si qaas ah u tixgeliya oo dad kale iga duwan yihiin marka hadba qofkaas marxaladda haysato ku xukmiya ula tacaala ugu dambeyn doctores gunti iyo gabagabada barnaamijka Tusaale Caafimaadka Rajo TV bulshada ku daawanaya ama dadka kugu xiran dabcan dhakhtar oo waxa tahay psychology ahaan bulshada Soomaaliyeed waxaad la kala leeyahay adigoo ka faa'iideysanay fursadda ay ku siisay Rajo TV Rajo TV fursadda ay siisay waa uga mahadcelinaya sababtoo in loo sheego dadka xanuunada nafsiga wax aad u weyn waa marka waxa kula talinaya in horta aanan la dafirin xanuun nafsi inuu jiro xanuun nafsi uu jira nooc raba ha ahaado dhakhtar psychology uu jira nooc raba ha ahaado psychology markii la dhahayo macnaheedu ma dadka waa waalan kaliya ama dadka xanuunsan inay umaadaan marka qofkan dhiban ee bukaanka ee xanuunada nafsi la tacaalayo bulshada waxa ka codsanaya ma u soo jeedinaya inaan barashar cusub lagu sii saarin waxaan inuu iska baabi'in karo inuu asaga yahay inay waham ay tahay inuu ka cudurbilaysto waxyaabahaas yaanan lagu sii saarin waxay ku noqonay barashar cusub qalad cusub in asaga la saaro yani caawinaad meesha laga sii lahay waxay noqonay in dhibaato kale loo geysto marka at least hadii aadan ku caawin karin hadalla kaliya lagu dhaawacin waan ogahay bulshada inay dhaawac ka ahayn ama ku dhib aqoontiyaa jirin wixii aan ugu cusub marka intaas safaraya bulshada waana mahadsantihiin daawadayaal guud ahaan halkaas waxaynu kusoo afmeeraynaa barnaamijka Tusaale Caafimaadka toddobaadkiiba maanta oo kala socotaan Rajo TV xarunta magaalada Muqdisho anigoo Bahja Cabdullaahi Salaada ayaa barnaamijka idin la socodsiinay toddobaadkan waxaa igala qayb qaadatay barnaamijka Tusaale Caafimaadka Dr. Idil Cawil Cilmi waa dhakhtarad psychology isla markaana ka howlgasha Dr. Cismaan Fiqo Hospital toddobaadkan barnaamijka waxaynu kusoo qaadanay xanuunka depressionka ama niyad jabka barnaamijkan intan dib ugu kulmi doono waxaynu idinkaga tagay sida ayuu nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh